barnaamijka barbaartisho toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa guurka iyo sidaynu kooda warhaynaba waayahan waxay soo tarayay guurka dhalinyarada si baaxad lena waxa uu daba socday furiinka iyo weliba guurka ajaanibka. haddaba toddobaadkan barnaamijkayga waxaanu dadka weynaha fikradooda ku weydiin doonaa maxaa sababay hablaha Soomaaliyeed ama wiilasha Soomaaliyeed inay guursadaan ajaanibka. hiraabe markaa waxaad nooga warbixisaa waxaad ka mid tahay aabayaasha Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan gaar ahaan muddo aad u dheer xaaskiisa qabay bal nooga warbixi sidaad adiga bal noloshaada adigoo dhalinyaronimadaada sidaad xaaskaaga sanadkaad guursatay ilaa muddo intee leeg baa isqabteen? xaaskayga muddo dheer ayaan isqabnaa. waxaan guursaday xaaskayga sanadkii 1985 ayaan guursaday ilaa haddana waa isqabnaa waana wada noolnahay. waa muddo kasoo wareegtay 26 sano. aad iyo aad haa. way adag tahay bulshadeeda dhexdeeda 26 sano inkastoo ay jiraan laga yaabaa familiya intaas ka badan bay isqabay balse haatan dhagahaygu waxay bulshada haatan lagu dhex jiraay furriinka ayaa aad u badan. aad iyo aad. adiga sidee bay kugu suurta gashay shakhsi su'aal gaar ahaan iyadoo ay tahay 26 sano inaad horta wax walba qadarta Ilaahay iska leh wax walba mataqaanaa ay ka suurtooda alxamdulillah Ilaahna ma dad iska leh waxaana loo baahan yahay in mataqaanaa qofka wuxuu raba inuu gaaro guusha uu raba inuu gaaro ama noloshiisa waxa uu raba inuu mataqaanaa uu muddo uu ku jiro inuu dulqaad u yeesho siba guurka oo kale. reer aan isqaban male, reer aan dhib soo marin male, reer aan mataqaanaa waxa loo baahan yahay in isku dulqaadkayga badnaa labadana isku dulqaadan jiray siba xaaskayga qof mataqaanaa aad u wanaagsan oo ii dulqaadan jirtay inta badan. Cabdiraxmaan dhalinyarada waa aad guurkooda aad u fara badan yahay maxaa keenay baa soo martaa? guurka fara badan waxa waayo saweyn badan keeni karo kanuu koobad waxa waayo dadka qaarkood isku daysadaan yani dhalinyarada ama marka qofku guursaday arkaan ama waxa mataqaanaa dadka qaarkood ama daayarka sanadahan jirto yani waxa malasaa mataqaanaa guurku mataqaanaa wax cusub oo fashion oo yahay marka daasoo isku mataqaanaa badan oo guursadaan dadka. waxaan u arkaa dhalinyarada isguursata normally waxay u badan yihiin oo dhaqso kala tagayaan waxay u badan yihiin dhalinyaro maaragtay fast marriage isku guursadaan oo guurka ayna wax badan ayna sheekaysan wax badan ayna maaragtay ayna wada socon marka horta waxa weeye Soomaalidu waxay ku maamaadaa geedkii roor lagu ful roora looga tagaa haddii laba qof oo iska baaraan dega ayna ahayn oo wax badan sheekaysanay qof walba qofka kale backgroundkiisa uusan ogaanin horta isma fahmayaan oo isku dhacayaan markii ya labada qof waa inay yihiin laba qof oo wax badan horta soo sheekaystay ama meelo badan qof walba dulduleelkiisa qofka kale uu ogaaday ma garatay marka waxyaalo badan bay isugu samran karaan. guurka maanta jira waxyaabo badan baa jira dadku inay dhaqaale isku guursadaan marar qaar waxaa dhacda xitaa in gabadhii wiilka reerkiisa isku diidaan iyagu iskooda isku guursadaan ay biri kala tagaan meeshaas dhibaato kale ka dhalato ra'yigaaga ku aadan arrintaas? wallahi horta guurka sidiisa waxa waa iska nasiib mataqaanaa horta ama dhaqaalaha noqdo ama ha noqdo mataqaanaa jacayl ha noqdo calafku waa iska meeshiisi laakiin marka ugu horeysa waxaa muhiimadu ay tahay labada qofood marka ay xiriir guur u wada dhex marayo inay marka hore ay mindset wax la yiraahdo ay tiigsanayaan mustaqbal nololeed ay isla meel dhigaan. marka aniga waxay ila tahay inay ka maqan tahay taas meeshii. waxaa jira xagga dhalinyarada waayahan dambe inay ajaanib guursadaan qurbaha marka la yimid meeshii doonaba hala joogay maxaa taas kana baa soran kartaa dhalinyarada iyo ajaanibka ama qoomiyada kale oo aan Soomaali ahayn inay guursadaan? wow markaan qiyaaso experience-ga aan u leeyahay dhalinyarada guursata ajnabiga hadday gabar tahay iyo haddii wiil yahayba inta badan waxa keena tijaabi bal dhaqankan tijaabi bal ruuxan tijaabi kadib waxa la yiraahdo culture conflict ka dhaca oo labadii dhaqan baa iska hor yimaada marka ama waxay soo dhalaan ama yeena waxay soo dhalinay guurka ajnabigu inta badan laguma raago. markaan experience-ga aanu leeyahay guurka ajnabiga la guursado dhibaatooyin badanna wuu dhaliyaayo haddii wiilku dhaqan kale uu galo ama gabar ajnabiga uu guursado
dhaqankiisii marka dambe wuu ku adkaadaa inuu dib ugu soo laabto hadday gabar tahayna hadday ajnabi gasho dhaqankii ama society-geedii inay dib ugu soo laabato iyadana way ku adkaanaysaa gabdhahan I think waxay ajnabiga ugu ordayaan wiilasha beentooda ku badatino mutris fiican mutris galayaan I think infanti mutris fiican ka haystaan so that's the thing maxay ahaato ay gabdhaha ugu guursanayaan horta anigoo kuma faraxsani mana jecel hooyo jecelna ma jirto in gabadheeda nin ajaanib ay u keento ma garatay waxaana badi ku kalifa gabdhaha wiilashii Soomaalida oo hadii ilaa ku rooyay run ahaantii iyaga laftigoodii qaarkood ayna u badnayn maaragtay inay laftigooda qualified noqdaan oo gabdhaha ay u arkayaan machangi boy baan guursanaya is better I marry someone foreigner who is maaragtay qualified laakiin taasna dhaxal waxay siinaysaa gabadha Soomaaliyeed bari ka maalin nin aan abtirsiyaheeda aqoon ama nin aan garanayn culture-keeda ama nin aan garanayn meel ay ka timid ma garatay iyo maaragtay iyo wax dhaqankeedu yahay waxay u badan tahay inay iyada laftigeeda bari iyadoo ama hal cunug laba cunug laga dhalay la soo eriyo maxay kala duwan tahay gabar Soomaaliyeed marka guursato ama wiil Soomaaliyeed ama ajaanib marka la guursado wallahi shakhsiyan aniga ahaan horta hore guurka mataqaanaa dadka jinsiyada kala duwan leh fikrad ahaanteeda aniga waxaan u arkaa hadduusan uusan ahayn mataqaanaa mid ku salaysan xag diiniyad ahaan uusan qofkaas mataqaanaa uusan islaamnimadii uusan ka baxayn ama uusan qof aan isku diin aysan ahayn uusan ahayn inuusan waxba ilama ah qofka hadduu gabadha ay tahay gabadh Soomaalida inay guursato ninka ayada dooqeeda uu yahay laakiinse uu ahaadaa qof islaam oo muslim ah oo diintii la wadaagay haddii ayada asagana ninkana uu markaa mataqaanaa uu nin Soomaaliya hadduu guursanayo doesn't matter wuxuu yahay jinsigiisa meeshuu ka yimid iyo asalkiisa waxa uu yahay aniga ahaan saas ay saadi kula tahay balse jinsiga waxa jira suul mararkana dhacdo gabadha haddii guursato nin muslima oo diin kala haysta diinta islaamka haysta balse qowmiyad kale kasoo jeeda reerka xiriir wanaagsan ma dhex maro maxaa yeelay waxa suurtagal in luuqadii la isla fahmaynin dhaqan in lagu kala duwan yahay ummadda Soomaaliyeed dhaqan soo jireen bay leedahay gabadhii wiilkii reerka xiriir ka dhexeey taas inuu meesha ka baxo taas ama u yeelan kartaa marka carruurta meesha ka dhex dhalato wallahi waa effect inay keento mataqaanaa waa dhici kartaa laakiin muhiimaddu waxa weeye mataqaanaa farxadda labada qofood oo markaa qofka noloshiisa ah ayaa muhiimadda aniga ila leh aniga doesn't matter mataqaanaa xiriirka iyo dhaqanka iyo waxyaalaha qofka shakhsiga ah waxa asaga uu damacsan yahay oo farxadiisa iyo noloshiisa mustaqbalkiisa ayaa muhiimadda aan siinaya aniga markaan aniga u leeyahay laakiin fikradaada ku aadan adoo la hadlaya dhalinyarada ajaanibka guursatay ama dhalinyarada ku degdegta guurka ama furniinku daba socdo advice-kaaga ama adoo la dardaarmayo furniinku horta waa fudeyd meesha ku jira ilaahay naga koriya laakiin haddii aan dhalinyarada waana ahaan tala siin lahaa waxaan dhihi lahaa aniga waxaa ku roon wiilka qofka isku jinsiyadda tiin ama isku dhaqanka tiin biri ilmahaada aad garan karta meesha oo la noqonayo laakiin haddaa qof ajnabi guursato hadhow ma xugmin kartid meelay ku dambeyn doonaan awlaadaada ama caruurtaadii ninkii aad guursatay meeshuu kasoo jeeday bay u baxayaan waxaa dabcan dhibaato kale keeni kara inuu ilmihii kaa hara hadhow noqdoba diin kala qaato oo qofkii ku xirmo iyo dhaqankiisii marka waxaa roon sida laisku dhaqan yaqaana Soomaalida inaan annaga isku dhex noqono ani sidaas ila tala ahaan waxaan kula talin lahaa dhalinyarada yaryar inayna ku degdegin guurka marka halaysu samro dhalinyarada waxaan ku advice gareynayaa in samarka la badiyo especially hooyada especially gabadha waa inay samarka badisaa hadday rabto gabadheeda bari inay nin fiican hesho waa inay u samirtaa ninkeeda guurka horta sidiisa waxa weeye wuxuu u baahan yahay waxa weeye waa inaad ku dadaasho guurka haddaadan guurka ku dadaalin aadan mataqaanaa aadan guurkaada aadan daryeelin ama aadan mustaqbalkaada aadan ka fikirin aadan ku dadaalin waa dhala jabtoo kale waxa waaye waa meel kama gaaraysa muhiimadda ugu weyn ani guurkayga u guulaysan intaasan waxa waaye waa dulqaad iyo sabr ayaa loo baahan yahay inaad u dulqaadato reerkaaga ama xaaskaaga ama aad mataqaanaa mar walba aad ku xisaabtanto maanta dhibka jira inuusan maanta kaliya uusan hayn oo dhibkan kheyr uu ka dambeeyo wanaag uu ka dambeyn doono bulshadu siyaabo kala duwan ayay u aragtaa inay sabab u tahay dhalinyaradu inay ajaanib guursato iyadoo halka kalena dadweynaha qaar kamid ay yiraahdeen waxa uu sababa dhalinyarada dhexdooda in iyagaan la isku ogolayn oo la isugu diidan yahay siyaabo qabyaaladeed awgeed
haddaba arrinta isweydiinta mudani waxay tahay arrintan ma joogsan doontaa mise waa soo socon doontaa